بسم الله الرحمن الرحيم أنا جو أبوان آدم حسن فارح أنا محاي هذه أمريكا هيدها يدقن كقبل الله أوضل يسأل يجبلي والواحد حسسنا يا ضد كان هذا لكم كنا واحد مدائن تكنولوجيا دن عصب عصري إن يدد كهدية دقن كجورسيسي أما لقوا إلا وي إنه تشري دول كان بقول سنة كهربان حسسنا يا ضد ك ودول كان هادر إيه كيمة لباح إيه شبال إيه بوت إيه مرودي إيه وحلا هالمال إيه كنا ولا بني آدم كعنيين ضد كي مركز دول كنا ولا واحد سمسن تشرين ورما إيه قاشامه قول حدا إيه السماء إيه السندبيال إيه اللباب إيه قانسوين بي مركز ضد كسمسن تشرين وحي كبار لحد الرجاس إيه تولي تشري أو كتولي تشري سامو وحي جيل لقى قرر رجع يقولون قري تشري أو قندها إيه فضالك إيه سقفته إيه دوبي إيه حيرده إيه فرنك إيه أي كتشري عن رجع قري تشري كارت جيل لقى حدا رجع قري تشري جاوا إيه قرف جيل لقى ماله حبلها سمين تشري دوبي مركز إيه دوبي يرى عرق يلا لقى كلام ماله حبلها سمين تشري قرب دي سبرات بيقبل وقبلها سمين تشري كل إيه ديل عنا لقى الله حبلها سمين تشري markay gabdhuhu agab oo dhan sameeyaan waxay sameyn jireen nolosha waxa uu qaalisan hooy la galay hooyga gabadh ba sameyn jirtay aabi hooyay iska dhaleen gabadhaas hooygaas oo ah hooy dhir laga sameeyay dhirna lagu sameeyay dhirtuna ay tahay dhulkaaga hooyay ka baxday oo aan waxba dibad laga keensan hooygaas oo aan madaraqad iyo cawjad iyo musmaar midna toona aan loo qaadanayn oo ka samaysan dhirna lagu sameeyay muur xoolahaaga kamidina ama geel awr xoolaha kamidina ay ku geediyeen oo ay ku qaadaan gabdhuhu guriga markay inantu dhagaatiga u dambeeyay ay fara ka qaado waa hees jirtay waxay oran jirtay dhagaatiga u dambeeyay markay guriga fara ka qaado wiilkay u doonaaday bay u baaqi jirtay waxay oran jirtay anigu soon iyo sambuux sadataal waan gaari kari way markuu soon yara u galo way hadaasun layla dhicin jirkayga waan saafayaa sarbageed baan saarayaa socotada lala beegayaa surimada lala joogayaa iyo sidaa inankii u gee wiilkii marka ay u doonanayd guuxaas markuu maqlo ilmaadiradii kulli si loogu geeyo waa loo geeyin jiray alaabtu soo qaadan jiray waa imaan jiray reerku imaan jiray guriga la gigimi jiray oo caruus baa dhici jiray waa la soo galbin jiray gabadha waxa lagu soo galbin jiray gabadha la horeysiin jiray waxa lagu soo galbin jiray dumar baa soo galbin jiray waxaanay oran jireen hooy nabow nuur alle muhammad nabi magacsamo bisinka yaasinka alif laga bilaw yo allah ina baray intii baratay iyo barxaadkeeda loo nasiib bisinka yaasi wax la bilaabayo bismillaah barakeeyeen waaye markay saayirahan guriga la soo gaarsiiyay gabadhu doobi caana halkan ku qaadi jirtay madaxa wiil aabihi hooyadii nool yihiin dhabarkay ku qaadi jirtay mid kale oo aabihi hooyadii nool yihiin way daadahin jirto gabadhu markaas saasay ahayd 7 jeer baa guriga lagu wareejin jiray gabadhu markaa waxay oran jirtay waxa la oran jiray dumarka guriga ku wareejinay waxa la dhaqdo markaa ummaddu ay ku noolaan geel baa ugu mudnaa xoolay ahayd geel baana ugu mudnaa geela lagu faana jiray waxay oran jireen qaalin mawlaanahe marqamadoobey maqaarba muska u yaal martiya mudana loomaal hooye geeleenoo lagama hooge hoggaan ila soo roorey qaalin mawlaanahe marqamadoobey maqaarba muska u yaal martiya mudana loomaal hooye geeleenoo lagama hooge hoggaan ila soo roorey baa la oran jiray markay saayiraanay gabadha wiilka ugu dambeeya fooda aqalka loo galiyo waxay oran jireen fooda ku galinoo kuugu feedne ku faafaatiyey faayoy baa la oran jiray ciyaaraad markaa dhici jiray oo waa la helin jiray waa dhaqan Soomaaliyeed dhaqankaasi gaar ahaan gobolkan awdal iyo salil iyo maaragtay gabilayba waa laga yaqiin dhaqankaas marka bal ka soo qaad anigoo ahaan geel sidaan ahaa oo ku soo raagay geela markaan xeeb joogno aagga saylici iyo dhankaas aanu joogno waxaanu ciyaari jirnay saylici oo gabadha waxaan oran jirnay soo soco siraade sidaadoo kale la waayay tag hadday gabadhu soo oran weydo haddaad gaaran weheyday gaardigay miyaad gaaran gogol si loo dhigo baanu gabadha oran jirnay markaanu buuraha soo gallo
waanu bedeli jirnay oo buuraleyda markaa soo galeen banka soo baxno waxaanu ciyaari jirnay saddexley dabqaalo oo career dagahayeehoy inaabtooy heedhegeliyo ree eherka dhacahayeehoy waa sidaahase gedigo ohoodu kaalaadhe eehoy baanu odhan jirnay markaanu dhaafnan aagga gebile iyo halkaa wajaaliya sidaa u gallo waanu bedeli jirnay oo hir waanu bedeli jirnay oo waxaanu odhan jirnay hir waynu halo hoosiyaynahaye allow hibadeeda noo keenay baanu odhan jirnay haddaanu sii dhaafno oon xaggaa iyo qadow iyo madar sii gallo waanu bedeli jirno bator baanu ku bedeli jirnay markaanu daantaas iyo halkaa ka gallo Ethiopia daanta la soo marka hore bator baan ku bedeli jirnay laakiin markaanu dhaafno waxa la soo bixi jirnay daanto haddee gabdhaha reeraha leh markaanu dul tagno reer gabdhiisu nacab geliyaan waanu heesi jirnay waxaanu odhan jirnay reeryahow ergaanahay erge edebsan baanahay ama ayda nagu dira allahayow ama oodanaga roga markaan haddii habluu soo bixi waayaan waanu ducaydayn jirnay oo waxaanu odhan jirnay haddaaba dheeragtaaye fundhaalka dhigo dhexweynay ku soo dhacdhaantaada show haddaaba dheeragtaaye fundhaalka dhigo dhexweynay ku soo dhacdhaantaada baanu odhan jirnay dhaqankeenu saas waa dhaqanka Soomaaliyeed siiba goboladan ilaa daantaasi saas aan ka soo warramay marka waxaad moodaa dadkan maanta inuu dhaqankii ka tagay oo hidiye dhaqankii laga tagay oo hooyaday iyada ay bartay butida oo iga sheekan jirto oo oran jirtay hooyo waa bahal calool weyn oo afdheer oo gamcale oo hadasha oo dadka dhageysata markaan dhulka barafleyda bahash TV-yada ka arkay waxaan gartay waxay hooyaday iga sheekan jirtay inay butida ahayd maxaa bedelay dhaqankii Tom Jerry iyo Malik Chance iyo wax la mid ah ay dhalinyartii daawanayaan hadda adu filimay daawanayaan islaantii hooyadeeda ama macooydeeda ama ayeeydeeda hayda uga sheekayn lahayd diya dhaqankii amba aabi ka sheekayn lahayd isaguna wuxuu daawanayaa TV waxaan leeyahay oo muraayad buu daawanaya oo wax kale u daawanaya ardaydiina ama dhalinyaradiina waxa ka daawanayaan de kulli wax ka socda muraayadahaas oo aan dhaqankeena ku fiicnayn waxaan leeyahay ha lagu soo noqdo hidaha iyo dhaqankii Soomaaliyeed siiba kii goboladan awdal iyo selal iyo maxay gabileeyaha lagu soo noqdo adu meel kasta Soomaali joogto dhaqankeeda dib ugu noqoto maxaa yeelay Soomaalidu waa jirjiroole qoomka adduunka kale waxa lagu yaqaanaa dhaqan oo gabadha maaragtay urduniyada ama ninka Cumaaniga ama ninka Suudaaniga ama ninka Yabaniga ee maraya Washington adoona weydiin qabiilka uu yahay waad garanaysaa waxaad ku garanaysaa hidiya dhaqankii gobolka aad ku arki jirtay ama wadanka aad ku arki jirtay ayaa ka muuqda ninkii oo uu suuqa ku maraya ku xargoonaya gabadhu haday xijaaban tahay xijaabkii waxa ka muuqda hidiya dhaqankoogii hooyo ayaa carabta ka muuqda waxaad moodaa hablaha Soomaaliyeed inay dhaqankii carbeed fidinayaan hidiya dhaqankoodii ha xijaabtaan oo ku soo noqdaan. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.